أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدا عشرka waxaan insha Allah baranaynaa sida oo loo remove gareeyo ama uninstall lagu sameeyo oo soo gashanay package-ka Nano ID ama Swiper ama kii oo aad u baahan tahay inaad remove gareysid ama ka bixisid. Marka inta clear aan dhaho si oo magaciisa wax nadiif noo noqdo. Okay. كو waxaan sameynayna in npm ayaan dhahaynaa bacdeen weeyal badan jiro oo loo remove gareeyo hadaa rabid un ayaad qoraysaa un kaasiti waxaa laga wadaa uninstall yani hadaa rabidne waxaa sida oo caadi ahaan ayaa u buuxinaysaa oone u qoraysaa oo magaciisa dad qaarkood markoo sida qoritaankan ay u qorayaan waxaa laga yaabaa in culeys dareemaan dhahaniyo waa badan yahay soo marka un ay ku qorayaan dib male marka anigu waxaan soo diyaarinayaa tag yani waxyaasha command-yaashan dhan aan isticmaalayo dhan warqad oo wixii sameynay dhan aan ugu soo diyaarinayo sigoo shortcut-ka ah sigoo oo caadi ahaan oo loo qorayo markii npm uninstall dhahno ka bacdi waxaan targeteynaa labo waxaan haysanaa inta dev dependencies ama dependencies-ka oo caadiga ah ko waxaan ku targeteynaa dev مثلا kasoo qabo kana rabnaa oo swiper-kan ayaan bixinaynaa. Okay, labo way aan sameyn karnaa hadii swiper aan ku bilaabi karnaa ama waxaan sameynaynaa labo oo save aan dhihinaa ka bacdin swiper meeshaan aan gelinayna laakiin marka hore waa aragtay marka aan install oo sameynay ko waxaan soo hormariyay swiper inaan ku bilaabo ka bacdi inaan dhaho save marka labadaas isku mid waay laakiin muhiimadu waxay tahay markii npm aad ku qortid marka maxaa rabtaa marka uninstall ina wax ka bixis ma rabtaa install ina wax gelis ma rabtaa ayaa ku qoraysaa ka bacdi wixii kaleete oo magaca oo package-ka u baahanahay inaan ka bixino waxaan tilmaamsanaynaa swiper-kan package-kan inaan bixino oo meesha waxa ku jira waxa markii labadan oo hadaa aragtid oo labadaaniti oo save-kaanid waxaan tilmaamaynaa oo save ku qoran dependencies-ka ayaan ka bixinaynaa waay haddii oo ku jiro swiper-ka meel ka mid ah dev dependencies-ka waa inaan qornaa waa dev dependencies-ka laakiin hadda ahaan waxaa ku jira meesha dependencies-ka ka bacdi enter aan dhahaynaa wax yar waa sugaynaa ma ogi error ba do you mean okay waxa aniga iga qaldoomay waayo waxaa laga yaabaa si aan u qoray laga yaabaa inaan qalad u qornida uni meeshaaniti un ka maqnaa malena ina ka maqnaa aniga waxaan qoray qalad marka ogaada markii wax qoraysaan isku hubsada anigoo yani okay iska kasaayo ayaan spelling-ka ama si wax loo qorayo ayaan hilmaamay ama gafay marka install ka bacdi waxaan dhahayaa swiper tilmaamaya bacdeen save marka hub inaan saxsanahay intaan dhahayaa mida markii oo command-iga aan qoray sax yahay wuxuu iga bixiyay swiper-ka haddaan rabo inaan bixiyo kan es builder-ka oo waxaa ku jira dev dependencies-ka waa inaan npm dhaho marka hore waxaan isticmaalaa unis raali noqda saas ayaan yani install ku sameynaya hadaa rabne waa soo gaawanaysaa ya ma markoo hadaa soo gaawisid yani hadda fiir qaladaan sameey markii hore wax baan isku dhac yani si oo u qornaa si qalad aan qoray so sidaan un waa soo gaawisay bacdeen waxaan targeteynayaa es build si uu qoran yahay aan qoraya ka bacdi meesha waxaa ku jira save dev bacdeen enter aan dhahayaa waa ka uu iga baxay haddaan rabo waxaan bixi karaa nano id waxaa jiro iyada xataa wax kaleete
oo sida uninstall ah remove waa dhihi kartaa, remove waa dhihi kartaa. soo gaabi rm waya ogaada rm way, laakiin remove waa dhihi karnaa. ka bacdi waxaan targareynayna magaca oo aan rabno inaan ka bixino oo package ka ah. ka bacdi meesha waxaa ku jira oo dependencies-ka. remove waa isticmaali kartaa saas, ama waa soo gaabi kartaa rm waa dhihi kartaa. marka waxaan eegaynaa inaan ka bixinay haalahaaseti ayaan insha Allah rabaa inaan magaciisa kusoo xiro. marabi waxyaalo badan inaan ka hadlo marabi, waa ogtiin wax qalad waan sameeyay. qaladkaas dhan ayaa waxaa laga yaabaa waqti galay videoganiti. halahan kusoo xirayaa insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.